dangerous. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة إسلام كايد كو سلام يا ميل البيتود عالم كجوكتا سو دوادا وواسكي دقبلو وهاكب لو فارح ولا الكيش معو كي كيرا بشير بالله متانان حسن قورو صاحب كيس قرش ودرس كيس كنو لا وراو ناقر سيكو ساها جابا كجالكتي مع الشورية بناوين شنطا بقى بقوري سو دوادا ميل البيتود عالم كجوكتان ادي يا الرساق يا فتاح بانو لنا ان شاء الله هدو الى يراد فيسبوك مالمها ويرى قرم من موتا رقص هذا حيشيري اير تليفون كاغا يوسكو عيلنا تاساس كو قبتيد مارك يا تليفون كاغا يوسكو عيلن هذه اسوينيسي اسلاندري هذا ما شاء الله هذه اذا عدد دقبلو حروي سعدان بي سو غشا ما شاء الله جيس كافريكا ساو مدحمرتا وحي قصن اي وحي دقن يدل مرتا موقت ما شاء الله هرتم ميدوغ هذا فيسبوك ما شاء الله هالقف بان وجع لهاي ما مليون الهي حفظه عناصير با كو دقن ودا قاب درن رك شيغريو عاييو فضيحينيو كدو دقن وي كغوليسنيسا لك نن عايتمي او قف دمر عايي وا بابا وي بابا والله وبالله والله هذه داير على سو تانكي فيرما داير على سو إن بدون بان إسكنا سو رجندي دولة يوم قرر ساي محافظ نمية معارض لكن وقب الشوية لما حقير نك الرقم مكتب ما ماذا قرب استاجي وقب الشوية دور كالصومالية دي أنا أكتر هذا اللي عين ما شاء الله شو دواد مقالة هرقيسة ضل كالصومالي لان أما الدولة الصومالي لان إسكت ودا واخذين مدح بنانتاي ما شاء الله سياسة دي مركا الله دليلا يكون عناصير تدقمده وحيوم ولا يعني قبيل لغا شاكينا ما مامل قالك يكدروا دقبلوا كشاكيا والله بين ما إننا معايو هرقيسة شليت واتان كشاكي ان دول استاغي هشيسكي دي بي وولد اللقا شي إنو مقدي سوقل وانا حقيق ويان tallaabada hadda xalayto markay hargeysa habeenimo wahayd ilaa iyo 12kii ilaa iyo 12kii bar habeenimo madaxtooyada hargeysa shir albaabada u xiran yihiin ba ka socday shir saxaafadu ay sanogeen ba ka socday shir umadu ay la soconin ayaa ka socday ma sha Allah laakiin muwaadinkan uu la socday aad ayaga dareemayo wayna soo bixi doontaa maalin dhawata markii imaaraadku ay aadeen madaxweynaha iyo waftigii la socday ay tageen magaalada Hargeysa waxa badan oo waxa jiratay miiska la isugu qaraacanay laakiin muhiimadda ayaga markaa ama shacabka walaalaha anaga barta degan qosheysho waxeed sicir barar ba ka jiro oo wad la socotaan oo shirkadihii wax la iskugu diri jiray ee telefoonada wax la isugu tuurayay illa mamnuucay in $100 wax ka yar aanan la soo dirin ama telefoonada loo isticmaalin oo $100 wixii ka yar la joojiyay waana la socotaan waana xaqiiqiye imaaraadka wixii ugu weynaa ee laga codsaday ee heshiiskan inta aanan wado iyo dhismo iyo horumar kale ma milyan ma sha Allah ku jecla maama aadiyad xaqa ku dilaacay ana ku garab taagan daahir cala sooba ku garab taagan dabcaseer ba ku garab taagan cid walba ku garab taagan anaasiirtan xaafadaha fadhido ee baabaasan waxba ka qaadi meesho guulban kulan intan annagu ku garab taaganay marnaba ma garanaysaa ma guul dareysanaysid ba kulay maama cadawgaaga u noolow insha Allah duulana daahir cala soona waa gobgob dhasho weeyaan wallahi wa billahi tallahi waa gobgob dhasho weey maaha mucaarad iyo dawlad maamadayda oo jeclahay oo aad u jeclahay buu garab istaagay una heeliyay ma sha Allah wixii qabiil iyo wixii siyaasade aniga isaga mar kale waxa weey ku xisaabtamay la karneedkaasi waana siya maama ma sha Allah aad soo dhawaada si sheer gareeyadi ku maasan muhiimadda ugu weyneed imaaraadka loo tagay wuxuu ahaa
in bangiga dhexe ee Hargeysa ama bangiga dhexe ama maamulka Hargeysa lacag loogu deeqo ama deyn ha noqoto ama hordhac ha noqoto si sicir bararka looga soo baxo oo dadku halka ku nool sicir barar ba istumadaasi beenama awaare ma garanaysaa waxyaabo badan baa isu kaashadeen rabeen hadda si dhaxgalaan dhow si kale u fasirayaan lacag 500,000 oo dollar yaa waxa laga codsaday dawladda Imaaraadka ama DP World qolada heshiiska la galay inay ku deposit gareyso bangiga dhexe waxa ugu yeeraan Somaliland in lagu deposit gareeyo si looga soo kabsado sicir bararka iyo ma garanaysaa macaluusha ka jirta bartaasi DP World ama Imaaraadka qoladii markaa la kulmeen waayahay baa la yiri okay bay arrintii soo socoto waa tii Turkiga uu dhinacan ka soo galay Djibouti uu ka soo tallaabay safiirkii Turkiga Djibouti fadhiyay iyo safiir kaleeto oo Somaliland ay u dirsatay ma garanaysaa Djibouti waa tay dhinacan u soo dhaafeen oo seelac iyo lagu hayo mashaariicday dhagax dhigeen wataan shalay idin sheegay wataan shalay ka sii hordhacay in mugdi badan uu bilowday markii UN ta ma garanaysaa safiirkii noo fadhiyay uu dacwada gudbiyay safiirkii Imaaraadka ee Muqdisho fadhiyay asagana loo yeeray habeennimadii saqdi dhexe ee codsadeen in la kulmo madaxweynaha Soomaaliya ay dhacay howlo badan mugdi badan ba soo galay lacagtii ayada ahayd ba hakatay lacagtii 500,000 dollar way hakatay xalay tashir ba ka socday madaxtooyada Hargeysa Muuse Biixi ninka kaliya diiday hoosaasi lagu casuumay la rabay in aqligiisa loo ogaado wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cirro isagana mar labaad buu banaanka ka istaagay shirki xalay ka socday Hargeysa madaxtooyadeeda aadi dhageyst shirka waxa keenay waxa weeyaan lacagtii 500,000 dollar ahayd ee la rabay lagu soo deposit gareeyo ma garanaysaa bangiga dhexe ee la rabay sicir bararkan iyo macaluushan in looga baxo waa la hakiyay laakiin guul maaha ummadda inay sicir bararka ka baxdo ummadda inay dhibaatada ka baxdo aniga har iyo habeen baan u taaganahay maasha Allah waana soo dhaweynayana sicir bararkaas ummadda Soomaaliyeed ka baxdo laakiin si khaldan si qaab daran si aan nidaamkeeda la soo marin iyo macnaha hawshaasi ku socotay xaqiiba dhaxbartanka ka dilaacay maasha Allah Imaaraad wuxuu hadda juhdigiisii iyo waqtigiisii isugu geenayaa Muqdisho wuxuu waqtigiisii iyo juhdigiisii isugu geenayaa iyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee ma garanaysaa mugdiga soo galay Muqdisho sidoo u cusboonaysiin lahaa aadi dhageyst xalay shir ba socday meel baasha loo qaadaa la garan waayay meelay baashu aadaan la garan waayay meelay u baxdaan la garan waayay laakiin way soo bixi doonaan wixii inta ka dambeeyo saxaafaduna ma ogo shacabkuna ma ogo maasha Allah lacagtii waa la hakiyay lacagtii Imaaraadku wuu hakiyay maasha Allah nimankii Hargeysa fadhiyay way ku foorartaa maasha Allah soo dhawaada waan idin soo noqonayaa Boosaasan tagayaa Puntland baan tagayaa Cabdiwali gaas meesha madaxweynaha ka yahay baan tagayaa aadi dhageysta DP World maaha Berbera kaliya maaha Djibouti kaliyana maaha meelo badan oo Soomaaliya ay saameysay aadi dhageysta hanad adeer meeshan welcome committee wicil baa ku dhalay buu leeyahay astaghfirullahu alazim adeer waa ku blogareeyaa waana ka tuuraya meeshan hadaadan dhageysan karin annagu bartan in lagu caytamo diyaaru manhin fikirkayga waad ka hor iman kartaa blog baan u diraya mugta maasha Allah blog badaadey shadeer macaan yinaara welcome committee meeshan waad ku qasbantaa inaad duqbilow dhageysatay aad iyo aad Boosaaso DP World naftirkeeda heshiis bay la gashay aad dhageysatay already waa xiratay kadib Boosaaso shacabka reer Boosaaso maasha Allah waa shacab wadaniyiin waa shacab Soomaaliyeed waa kaceen aad iyo aad been uga dhidhiyeen arrinta ayada aad dhageys shir baa iyadana xalay ka socday siyaasiyiin hore iyo ma garanaysaa cuqaasha iyo dadka waxgaradka iyo ganacsatada reer Boosaaso shir albaabada u xiran yahay baa xalay Boosaaso ka socday reer Boosaaso way la socdaan arrinta ayada reer Boosaaso caburin baa la geliyay aad dhageysto Cabdiwali gaas wuxuu u adeegsaday in saxaafadda uu ka ilaaliyo inuu war ka soo baxo Boosaaso wuxuu u xil saaray ninka milkiilaha iska leh radio-ga ama idaacadda TV-ga SBC la yiraahdo SBC
magaciisa ma garanay magac buu leeyahay inkastoon hayo laakiin aan halkan aan hadda rabin inaan ka sheego ninkaasaa loo xil saaray inaan wax liig ah uusan ka bixin magaalada Boosaaso laakiin idaacaddeedii xorta ahayd waa duqbilo weeyaan maasha Allah cuqaashi iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii hore ee u soo shaqaysay Puntland ee danaha Puntland ka shaqeynaya maanta shirkii xalay ka dhacay Boosaaso waxaa laga soo saaray go'aamadan aad dhegeysta annagoo shacabka Soomaaliyeedna waynu garab taagannahay waynu garab taagannahay soo dhawaada maasha Allah sii gudbiya sii shaqrey aad iyo aad baan u garab taagannahay qodobada ka soo baxay shacabka Soomaaliyeed wayna ogaataan aad dhegeysta wayna ogaataan DP World waxay rabtaa Djibouti markii laga bixiyay inay gacanta ku dhigto Berbera iyo Boosaaso cunaqabateenna ay saarto dekadaha kale oo dhan inay canshuurta kor u qaado inay maraakiibtii iyo beecsharooyinkii ka soo degi jiray geeska Afrika ay yaraadaan aad dhegeysta oo howlo badan isku qasmaan dhulkooda uu kaco dekadooda ay booming noqoto ay noqoto the world biggest boat in Dubai in weligeed record ka haysato aad dhegeysta DP World markii la fasirana waa Dubai boat weeye waa dekada Dubai weeyaan af Soomaali haddaan af Soomaali u dhigo aad dhegeysta waan u soo noqonayaa hawshaas waa geli doona waxaan u soo noqonayaa barnaamij kale ta ku jiray qodobada ka soo dhacay magaalada Boosaaso cuqaashi barta joogtay iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii ee xalay shiray waxaa la isku afgartay dekad yaa xasuusta maalin dhaxlaas markii uu markabka gadoomay ee shacabka reer Boosaaso isku tashadeen wiilashii dhagaxa qaadayay gabdhihiina shaaha karinayay ummadii Soomaaliyeed oo dhan u riyaaqday ee badda intii la dhisay dekad yareeda macmilkeed hantidii Soomaaliyeed la badbaadiyay yaa xasuusta waad wada xasuustaan anigu waan xasuustaa inkuna waad xasuustaan in inta ay Cabdiwali iyo xukuumaddiisu ay ku dhagan tahay DP World iyo halkan siliga la xirtay ee hawshan nuxnuxda socoto in shacabka reer Boosaaso iyo shacabka reer Puntland dekadaasi ay ballaariyaan wayna muujeen maskaxdoodii wayna muujeen aqligoodii wayna muujeen wax qabsan karaan in dekadaasi la ballaariyo juhdi la geliyo ummadda Soomaaliyeed barta degan isku tashato aad dhegeysta go'aamadaas soo baxay cidii hor istaagtana inay rabto inay shacabkani baabiisan la aqoonsado Cabdiwali gaas idaacadii oo dhan buu ka ilaaliyay in qodobadaasi banaanka u soo baxaan inay ummaddu ogaato wuu diiday asagoo afka loo buuxiyay ognaay asagoo afka loo buuxiyay oo DP World marada afku buuxiyay ognaay aad dhegeysta wana wareerinaya laakiin idaacadahan xorte roortii soo galo way ka wada afdheeriyay kuwa BBC-da loogu yeero kuwa Voice of America loogu yeero TV-da kuwa loogu yeero way wada ka wada afdheeriyeen maasha Allah aad dhegeysta shacabkii iyo cuqaashi iyo waxgaradkii iyo businessman iyo businesswomankii xalay Boosaaso ku shiray waxaa la isku afgartay in dekadaasi loo soo wareejiyo beecsharadii iyo bagaashkii iyo ma garanaysaa maasha Allah hantidii ummadda Soomaaliyeed ay dibadda kala imaan jireen inay iskood isu xilqaamaan la ballaariyo oo la weynaysiiyo oo halka lagala soo dago inta DP World ay dekadii hore ay faraha kula jirto xagga loo soo wareego laakiin maamulka Puntland wuxuu rabaa inuu cunaqabateen sameeyo laakiin shacabkii oo dhan baa ku tashaday arinta kaba hor istaagi karo kabana celin karo kabana ma garanaysaa maasha Allah ee kaba burburi karo siyaasiyiin baa ku jiro cuqaashi baa ku jirto in badan bay hoos loo wada hadlay hadda banaanka u soo baxay idaacadihii baa loo diiday inay banaanka ee ma garanaysaa Soomaaliland hadlaan baa loo diiday laakiin anaa u hadlayo aad dhegeysta وانا رون ريباساسو حدارت بلادهين ريباساسو عالم كواتوستن ريباساسو لعق بدن بي DP World سو دغتay waan ognahay ريباساسو والله سعنا إراد حوق كل ستين دكت مدة ساعة كوبنة هداد مانتنا شركة عقاشة وحجرت كاس قامدا يسوج جديين أدو جد ستان DP World وان كريننا DP World قرشها وضطو وحاويان إلى دكدا قعنتا كلكتو عشورتا إذا كوك عشو شغالي برتا كشغينا يسوذ في جسو إلى أياذو كان تروشو جيس كأفريكا أو دان هذه ديس جبوتي واكا علي
somalilan heshiiskeeda mugdi badan baa ku jiro aadii dhegayst meesha keliya hadda la rabo inay kacdo hadda la rabo inay tusto caalamka hadda la rabo ma garanaysaa inay xaqiiqda bannaanka soo dhigaan waa reer boosaaso ismadaa raaca waxgaradkaa raaca aqoon-yahanadaas go'aamadaas soo jeediya raaca waan la soconnaa in cunaqabateen dhinaca miidiyaha nila saaray waan la soconnaa in idaacadihii oo dhan jaabka lagu wada shubtay waan la soconnaa raali noqdo wax yar internetka waxooga yar jaqiga yar noqdeen meel qaab daran baan taagana soo dhawaada maasha allah see lay maqlaa hadda codkay waa la maqlaa soo maa axmed nuur blog baa taadeer macaanay it can be nuur blog sar aad iyo aad maasha allah waan la soconnaa in idaacadihii oo dhan blog la wada saaray laakiin reer boosaasow ha oggolaanina in dekadihiinna in ma garanaysaa ay imaaraaday kaantaruulaan annagaa cod idiineh annagaa gudbinayno annagaa qorshe walba gudbinayno insha allah hadduu leeraado shirka isimada iyo aqoon-yahanada iyo waxgaradka iyo ma garanaysaa ee wasiirradii horeto ee puntland u soo shaqeeyey ee halkaasi go'aamada ku soo saareen ee idaacadaha loo diiday ee idaacadaha in laga sheega loo diiday anaa bartan ka sheegayaanoo duqbilow fiva puntland ha noolaato puntland hor bay u soconaysaa ma dhacayso in ma garanaysaa wiil carabe inuu ma garanaysaa ka danaysto soomaaliya inuu ummadannada ma garanaysaa macaluul ku rido in ummadannada ma garanaysaa uu ku kor shaqaysto marnaba dhici mayso xaqiiqdu waxaa weeyaan dekadii macmilka ahayd ee maalin dhaweetan la dhisay ee markabkii lagu badbaadiyey yaa lagu tashaday in la ballaariyo yaa lagu tashaday in la dhiso yaa lagu tashaday in juhdi la geliyo yaa lagu tashaday in la weynaysiyo yaa lagu tashaday dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed in bartaa la isugu geeyo taageera idinkana ayadaa dhan u guurayso db world qasab bay ku guuraysaa markii dekedaa la furo bagaashkii ka soo degan jiray boosaasoo dhanna xaggaa u wareego aad difaacdaan dekeddaas waan ognahay maamulka lacagta la siiyey inuu burburiyo iyo howlo noocaasuu u socdaa culumadii baa hor taagan maasha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماما يمر. ما شاء الله ما شاء الله عاد بنكو سلام يا وحد كهل ليسنا وارهم. صح. إلهي سبحانه وتعالى أفككم الجوية. صح. dad baa waxay u qabaan barigii dhaweytaan u mudaharaadaynay dekada berbera inaan anagu qabiil ku soo jeednay ama anagu aan qabiil ciirsanaynay bay u qabaan maanta waa boosaaso waxaan idiin sheegayaa nimanka maamulada haysta meel walbaba haystaahay dadka idaacadaha waddanka dhexdiisa jooga way abayuusaan sax waa la abiyuus gareeyaan way cuna qabateeyaan sax oo inay hadlaan bay u diidaan oo way xiraan sax laakiin sidaas sheegtay idaacadaha madaxa bannaan ee social media ee facebook hanno hadal maaha hembarirse arag maaha been ma sheegayne shirkadaheenna nimanka waddanka madaxda ka ahi yaa doortay shacabka doortay عبدي وليقاس إيه نكلا يراهدو موسى بيحي إيه نكلا يراهدو فرماجو إيه نكلا يراهدو أحمد مدوبي إيه غار كلام بدن نينكا صومالي نماذا كوين أنا كنا قينا صومالي شاقينا سو فريدم تو سبيك بانو كنا لناي وليبا waxaanu ku sheegayna oo idin sheegayna dekadaheena Soomaaliya dad Soomaaliya in kaar baa ku dhaxday so waan arkaysan hooyaanahay hooyaanahay single mother baanahay North America ku noolahay freedom to speech baan ku hadlaa qofna ma dilo habeen iyo maalinba qashin baa iga daba laalaada maxaa koos gareeyay so maamulka dalkeeni baa waxa la rabaa in lagu ciyaaro sax so anigu shalay markaan banaanka u istaagnay dekada berbera ha abo dekada boosaaso digso inaan u istaagaynin waa u istaagnaa waliba adaa ku watay uqaasha isimada iyo businesska dadka ganacsatada ee xalay shir baa boosaaso ka dhacay idaacadiyo dhan waa loo diiday niman baa loo xil saaray inuuna liig ka bixin magaalada boosaaso ma garatay annaga cod u annaga ma garanaysaa u hadlayno annagaana ummadda Soomaaliyeed gaarsiinayno reer boosaaso waxay ku tashadeen maadaama DB World dekadu loo wareegtay oo shil ku xiratay
وعن شورتنا كعنيسو إن شعبك صوماليات بوساسة دجن inay dakadii maalin dhaweeto ay dhisteen ay xoogooda ku dhisteen gabdhaha Soomaaliyeedna shaah u karneen wiilashina ay ciida dhigayeen in juhdi la geliyo DB World ay aragto umada Soomaaliyeed inay wax qabsan karto duu maamulkooda uu garab maray ma garat ma sha Allah waanu garab istaagayna waan u soo bixinahay okay maxaa ku soo haray horta adduunka Ilaahay waxa dulmo waa shacabka sax waxaan taag anigu maqlay intaan social media ku jiray dhibaatooyin badan anigu Puntland waan ka soo jeedaa uma hiilinayo shacabka wixii dhibaataynaya anaga shacab baan wayna dhibayaan anagu dadka jaaliyada oo dibadaha jooga oo diaspora la dhaanahay wayna dhibaysaa anagu hooyooyinka qurbahan ku nool ama aabayaa qurbahan ku nool hadaanu nahay waxyaalaha qaladaadka ah ama dawladda hadii lagu hayana wayna dhibayaan shacabka hadii lagu hayana wayna dhibayaan waxaan ku sheegayaa Soomaaliya waxa ka jira dictatornimo ka jirta oo aad iyo aad soo shacabka Soomaaliya wax kasta oo ay shacabku haduu khaldan yahay waa ka soo horjeesanayna waa sax haday dawladdu khaldan tahayna waa ka soo horjeesanayna waa sax because waxa adduunyada horumar lagu gaaraa waa in uu ogaato ninka dawladda ninka shalayto madaxweynaha laga dhigayo ama Puntland xukumo ama Soomaaliland xukumo ama xamar xukumo ama Jubbaland xukumo meeshu doona soo ninkii shalay shacabka nalaama bariyay sax soo ninkii shalay shilmada loo aruurinayo markuu qurbaha yimaado farnayska loo aruurinayo Soomaali ahaan waa sax yes soo ma waxa wax loogu aruurinayo ama wax loogu qabanayo inuu shacabka Soomaaliyeed inuu cuno qabateeyo sax dekadaha Soomaaliyeed ragiisi hadii idinka rakala maskaxda idinka qabsadeen dekada Boosaaso shacabka Puntland shacabka Soomaaliya meel walba ay joogaan bay dan ugu jirtaa sax kan qashinka ka gurhayo waa inuu Soomaali yahay kan wax uga soo degayaan waa inuu Soomaali yahay kan ka shaqeynaayo waa inuu Soomaali yahay kan mataq xamaalayo waa inuu Soomaali yahay kan maamulaya waa inuu Soomaali yahay kan xoreysanaya waa inuu Soomaali yahay sideen nin joogaahi gurigiisa nin kala u maamuli kara adigoo xaas leh maanta duqbulow xaas baad leedahay ma sha Allah wiil dhalinyaro oo Friida oo maanta shaqeysanaya tahay gaarigaaga dhexdiisa ka dhaxlaysa so maanta gurigaaga nin kale inuu ku maamulo ma ogashaa wadillaha no waa ku jahaad la so maxaa ku soo haray nin gurigiisa nin kale aba sax u ah oo ordaayo waxa anagu arkayno ma arkaan miya anagu qurbahan ku daalnay anagu waxaanu aragnay dadkii lahaa jecel yahay baanu aragnay oo sa u wataan sax ilaashanaya sax so anaga waxaan ka soo horjeednaa ama Puntland ahaw ama Jubbaland ahaw shacabka wadanka degan iyo dalkeena xoolaheena haday noqoto dhuxusheena lama dhoofin karo xoolaheena ma taqaanaayeeto xoolaha maxaa la dhahaa xooluhu waa labiya dhadig xoolaha dhadiga lama ogola in la dhoofiyo xoolaha waxa weeyaan ninka hala dhoofiyo laakiin xoolaha dhadiga sidii waxaan u hadlay BBC-da ka hadli jiray oo geel oo ninka Allah naxariis Ahmed Maxamed Nairobi Ilaahu naxariis dhadiga labki waa saarnina naag baa gaarinaado soo maxaa keenay xoolaha dhadiga lama dhoofin karo dhuxusha lama dhoofin karo oo dumarka waa in la ilaaliyo wadanka dumarka ka baxay waa in la ilaaliyo sax oo wadanka waa in dekadaha waa in la ilaaliyo oo beeraha waa in la ilaaliyo oo khayraadkeena waxa la ilaalin jiray miraha wadankeena ka baxaa la ilaalin jiray xataa inay dhoofaan sax so qof jeebkiisa shilin u aruursanayo mooyaane qof dhiigiisa dalkan anigaas markaan hadlayo waxa la yiraahdaa waxas maxaa ka galay waxas waxa iga galay soo waari maysida wara ka haro waa sax bari Soomaali baan sax so dadka aragteen oo taariikhaha leh oo Soomaali ka dhashay ama cid walba ka dhashay ee history-ga galaahay way ba history-ga ku galaan so waxay ku galaan in la dilo ma kala jecla in la dhaca ma kala jecla in la xumeeyo ma kala jecla soo Soomaaliyay annagu dekada Boosaaso waa wardiyeysanaynaa shacabka Boosaaso shacabka Puntland Cabdi Wali Gaas iyo ninka la yiraahdo hadda labada nin oo ugu dhaqan xun Soomaalida sida la sheego soo anigu wadaan madaxweyne tahay anigu ma ku diidin laakiin dhaqan xumadaada waa sheegaynaa asaga iyo ninka la yiraahdo madaxweynihii sharafta badnaa baa dhalay in Cabdirashiid labaduba dhuun raac bay noqdeen labaduba dhuun raac horta Ilaahay baa nagu jecel waa sax umad anagu ku taageeri mayno khaladka wixii wanaagsan waa ku taageeraynaa wixii xunna waa ka qabanaynaa waliba xagee kugu sheegaynaa ma taqaanaa public iga dheh public aan kugu sheegaynaa so no hadal maaha hembarisay arag maaha anagu freedom baan haysanaa free baan u hadalnaa oo dalkaygaan u hadlaynaa anagu dawladdaada iyo
wixii shacabka khaladaadkooda ama dalka dhibaataynaya oo damage u geysanaya adar waa ka hadlaynaa soo maxaan ku diidaynaa waxaan kaa rabnaa oo kaliya in aad dalka madaxweyne ka tahay صح laakiin shuruucda dalka ha dhaafin kaleheenu wax gunti la geliyo waa ka weyn yihiin صح no waa in dalkeenu imaarad xagee xoolo uga yimaadaan imaarad waa deked waa freeport waa freeport weeye freeport adigu ma noqotid صح warun ma freeport noqotid oo Asia la xiratid oo meel walba la xiratid oo wadankaaga uu ka soo dego oo madaxweynahaaga qiimaysid inta dibay waad aragtay nimankan carbeed ay haystaan wadanka yaa ka shaqeeya Hindi iyo Pakistan iyo dad kale nimankan sheekhyada la dhahay iyo maamulkoodu waa dad yar صح minority how many people back kugu jira oo well education how many people back kugu jira oo aqli leh so anaga qurbahan maxaa na dhigay so waa wadankana waa ilaalsanayna so waa u hadlaynaa so daahay ninka la yiraahdo duqbilow waa kugu taageeraya waa kugu garab taaganahay dadkaas joogas Puntland waa cabursan yihiin wallahi cabursan ninka dhan hadda Mareykan ka tagay oo professorka ahaa jaamacad buu dhigay waliba ya hello Abdi Wali ayada professor in America you know what magaaladan waxa joogta gabar ka ahaan jirtay wasiirka dumarka magaaladan ay ku nooshahay been ma ku sheegayo dulmiga Puntland ka dhacay ya gabadha yarta maalintii lagu kufsaday ee ay u dhimatay Faadumo never ma iloobiyo صح ee ay ku dhimatay ya raadiyayaasha iyo TV-yada dhan waa loo diiday صح wasiirada markay u tagto gabadha yartayda walaasheeda dugsiga fadhida ay tiri walaashay saan iyo saan baa lagu sameeyay markay tirina ya dhagahan ka furaysanaya bay tiri dhagahay ka furaysatay maantana Minnesota joogta iyadoo wasiir ahayn soo maxaan ku sheegayaa soo sharcigaas soo inuu ka hor yaalo ma ogid anisu صح soo farminaysataa ahayd soo sharciga waa ka soo kacday xilku waa soo dhamaaday soo Abdi Walina xilku waa soo dhamaanaya wuu soo noqon laakiin waari maysida maxaa ka haray waari maysida wara ka haro warka ka haray muxuu yahay ma war fiican baa mise waa war fiican soo war xun soo anagu thank you very much anu siyaasadaha inta badan ma galo soo dumarkii iyo caruurtii iyo dhalinyaradii oo dhan baa wadayacan jikadii baan hagaajinayaayo xaruntii baan la hadlayaayo dumarkii baan caawinayaayo madaxii camal baan sifaynayaayo qashinkii baan nadiifinayaayo halkaanay ka shidan tahay laakiin siyaasadda Soomaaliya weligiin iyo allihiin wax cadaalada mooyaane wax kale ninka madaxda ah iyo ninka yaanyada gadaaya waa laba nin oo Soomaali ah waa sax waa labada waa ninka xamaaliga ah iyo ninka wasiirkaana waa laba nin oo Soomaali ah sax waddanka wada wasiirada ah iyo gabadha ma taqaanaa tuugsanaysana waa laba gabdhood oo Soomaali waxba anaga yaa shaarna loo gashan anaga Soomaali waa noo Soomaali thank you hooyo ku soco aad ya maamuli ma sha Allah ijoog horta shacabka reer Boosaaso aniga halkan sirba ka qarxinaya maamulka Cabdiwali hogaankiisa kaliya macnaha waxba igama galin laakiin shacabka reer Boosaaso cabursan yihiin loona xil saaray inuu saxaafadaha ama idaacadaha Puntland uu wada corruption uu ka dhigo ninka SBC TV galdo iskale xalayta shirki dhacayay cuqaasha isimada iyo waxgaradka iyo dadka ganacsatada isugu yimaadeen laga arrinsanayay ma garanaysaa dhibaatada ku soo socoto Boosaaso iyo dhibaatada imaaraadku uu ku hayo ma garanaysaa geeyiga Soomaaliyeed idaacadihii uu diiday wuxuu yiri wax idaacad oo tagi karta malaha warka lama gudbin karo lama sheegi karo waxay codsadeen laakiin annaga freedom of speech aysan halka ka gudbineen maadaama qodobada ka soo baxay ugu muhiimsan baan halka ka sheegayaa maadaama imaaraad uu leeshiyay maamulka Garowe ama Cabdiwali Gaas uu hogaamiyo oo ma garanaysaa dekadii ay gacanta ku dhigeen oo ma garanaysaa ma sha Allah sili ku ooteen in shacabka reer Boosaaso iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed ee bagaaska iyo hantida kala soo degan jirtay Boosaaso in loo ballaariyo dekadii maalin dhaweeta la dhisayay ee lagu badbaadiyay markabka in la isku tashado halka loo guuro xaqaana la ballaariyo la dhiso ummadda ganacsigeedana halka kala soo degto DB World iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dacwadeeda socotana siligooda u xiraado taasi waa loo diiday inay idaacadda u soo baxdo laakiin ana barta ka sheegay ma sha Allah ummadda Soomaaliyeedna way guulaysanaysaa annaga garab istaagayno hiil iyo hooba la garab istaagayno hadday noqoto in ma garanaysaa dhaqaale loo aruuriyo hadday noqoto in shacab weynaha Soomaaliyeed u soo baxaan hadday noqoto in ma garanaysaa meel walbeeto ummadda la gaarsiiyo waynu gaarsiinayna ma sha Allah reer Boosaaso waa dad xadaarad leh waa ganacsigii ummadda Soomaaliyeed waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed lama caburin karo
madaxana loogama istaagi karo shakhsi waa ka weyn yahay Soomaaliya shakhsi raba inuu ku taajiro wuu ka weyn yahay maasha Allah midda kale tana qodob kale tan soo noqonayo waxa weeyaan waa Ethiopia maamuliyeen maasha Allah Ethiopia ra'iisul wasaare cusub baa qabsaday ma garanaysaa ururkii EBRDF lornay nin Oromo ay doorteen madaxweynaha dowladda Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamuud Cumar anigu marna waa taageeraa marna waan mucaarada maasha Allah waa qaabkii siyaasadda iyo geeska Afrika arinteedu dhisantahay dad badan baa ku kacsan dad badan oo waxaan arkay baashi dhinac kale tu gadanayo dad kale waxaan arkay baashi siyaasadeed dad kale dhinac badan u dhigayo arrin la iskaga horkeenayo ummadda Soomaaliyeed barta ku nool hooyooyin baa degan walaalaha degan arxam baa degan ehel baa degan umma Soomaaliyeed baa ku nool marnaba in loo promoter gareeyo in ma garanaysaa ummaddaasi dib loo horseedo anoo duqbulo waa ka soo horjeedaa hooyooyinka barta degan ee Ilaahay barta uu ku beeray waa inay noolaadaan waa inay biyo cabaan waa inay cunto cunaan waa inay ma garanaysaa nabadgelyo helaan Ethiopia annagu waxba nagama galin ama ha heshiiyaan ama aysan heshiin laakiin rag siyaasiyiin oo baasha kicinayaan ark haddaan soo hadalkayga haddaan magaciisa dhawan soo qaado Faisal Ali Waraabe Kirshboyga siyaasadda bay yiraahdaan moogta markay kaftameen markay la kaftameen Kirshboyga siyaasadda yiraahdaan magarafoonku soo qaatay ummadda Soomaaliyeed ee barta degan iyo Oromada walaalaha ah iyo jambal u tuuriya iska horkeenaya laakiin ana halkan ka cadeynaya xaqiiqda barta ka sheegaya Faisal Ali Waraabe hal arrin dhageyso adigu Soomaaliyeed ka mid tahay Soomaalida barta degan iyo Oromada barta degan Ethiopian weeyaan Ethiopianka qarrada Ethiopianka ku jiraan culaad annagu horseedi mayno ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo doortay Ethiopia dooratay qaabku ummadda Soomaaliyeed uu kula shaqeeyo iyo dawladda Soomaaliya uu kula shaqeeyo yaan annaguna afkanaga ma garanaysaa qaabkan uga hadlayna barta markaas oo afkanaga ka soo baxayta inta ka horeysa ka hor dhicmayno Faisal Ali Waraabe wuxuu iska horkeenayaa isku dirayaa Oromada iyo Soomaalida barta degan wuxuu leeyahay kuwii shalay idinka soo horjeeday Oromoy ninkii shalay mikrofoonka watay wuxuu ahaa ninka deegaanka heesta Oromoy maanta aad awoodaysan ee laaya Soomaalida barta degan biyaha u diido Soomaalida barta degan kana hortaga Soomaalida barta degan buu idaacadii barta intuu iskugu yeeray buu ka dhawaajiyay waa siyaasi aan xishoonin waa siyaasi aan nabadda aan u horseedin waa siyaasi colaadda huriyo weeyaan anigu waxaan leeyahay maamulyo fikirkeeda ma hayo laakiin anigu waxaan leeyahay hooyada barta degan iyo walaasha barta degan ee Soomaaliyeed ee Ilaahay uu kala xiray ee cadow uu border inoo sameeyay laakiin qalbiganaga iyo niyaddanada aan ka ogsoonahay inay hooyadanada ay halka degan tahay gabadhanada Soomaaliya halka degan tahay u horseedi meena una yeeli meena in cadaawad iyo dhibaato saacada la horseedo sida maamuliyeen ma sha Allah okay horta hore Faisal Ali Waraabe iyo madaxweyne Trump waa isku mid ko sax Faisal Ali Waraabe horta hore waa fiican yahay ma dhaw wax yahay ma dhaw sababtaan u waxeen sirta wadankooda ninkaas ay inoo keena waa sax waa sakeelna warigaana dad hadduu kugu dhex jiro nin waalan ninka waalan la iskama ceysho la iska dhageystaa warkiisa soo waxa weeye wuxuu qabo asagu subaxii buu Trump waagu markuu bariyo wuxuu la soo fariistaa tuurarka asagoo naagaha baalaha ka rifaayay baaluhu ka xariif uga dhaqaaqa shaqadiisana waa sii qabsadaa Ali Waraabana xanta Somaliland oo dhan horta asaga inoo keena dawlad goboleedka Somaliland xantiisa oo dhan asaga social media keena maamulka Hargeysa sax ko maxaa ku soo haray horta Ethiopia dad baa degan laakiin Ethiopia waxa uga seexanaynaa ma taqaanaa سيد عبد محمود عمر أما ذكي ساحر حرو أما وحنا دون هوا يسوي كوان أديك السوشيال ميديا سوقوا حد ما يقف فاتح ساكت دور قف حري ثانك يو عبد محمود عمر ذكي أصبح الحرا هرب ذكي عن الحرو والله وروي ما شاء الله قال له صار بين بنشعش هاي موت أنا ولكن بنت متشعني لكن أنت لايف كوجرتي أنت هلا يسنا كواب بدنا الحري اللي هاي بتشرو ماشي كوجري صح سو مركا أنا وأنا ما أنتي 8 حيرو أديكونا 8 حيرو تدار 8 حيرو كان 8 حيرو صارت ذكي أو حيرو نكلا يراد سيد عبد محمود عمر وقوة سوق كو سياسة إثيوبيا هرتوا واحد إثيوبيا دقيستها ما إدين شيء إثيوبيا هرتوا واحد دقيستان أمارة كوالله صح فيصل على ورا مرت محارقة بكوالله مايا هنا هذا ما أفكار وحوش إثيوبيا وحوش أفكار وحوش صح واكر ميل وعامي بينك ربي دوت كهاي إثيوبيا وحوش هرت أفكار وحوش إثيوبيا
يا وحشي كرا يا أجر ليش ما وحشي كرا وأنا ذبت أبحاري تقانا مركو سيد عبد محمود عمر وكوفة اللي هرت تشجع وكل كشران الحوينة كاجيها oo dalkii barwaaqo sooran ka dhigay horta cayayaanka oo dhan uu xirxiraya soo ku soo caqaysanayaan meesha anaguna waan u socdaa Ethiopia waa tageynaa waxyaalahan u aadaya waxa kamid ah oo igu imborsan dadka maxabuusta inaan u tago u soo qubeeyo sax oo saldhiga ugu tagtid inaan ugu tago sayidka intaan weydiisto oo aan wadanka tago oo aan maxabuusta oo ii ogolaado inaan u qubeeyo wax weyn baan u sheegi lahaa so social media may la socdaan oo way ka xiran yihiin marka MS baa la yidhaahdaa markaan dhooqaar ba oranay MS maxay tahay marka MS intaad xirnaydeen bay soo baxdaan leeyahay adduunka intaad jeelka ku jirtaan bis bedelay waxyaabo badan baa dhahaya waa toobad keenaynaa hana la qaabado marka dawladda horta hore ra'iisul wasaaraha waan orma baa la yiri waa nin muslima waliba la yiri wuxuu doonaba aad adduunka horta wuu isbada bedelaya laakiin waxaan ku sheegayaa wadankaas kaga seexo sayid cabdi kaga seexo Ethiopia kaga seexo geesi baa ku fadhiya lugihiisa wuxuu ku hadaaqayo ina waraabana waa waxa rag caqliga leh ay ku hadlaan oo sheegi waayeen boo asagu sheega ka fakatay marka waa ka fakatay marka xanti ka fakatay anaga danbaa noogu jirto marka waa taageersanahay ina waraabe sawir cid kale ka helmayno waa isxiraysa waa sax waxaan ku sheegayaa taa ka naso sax maxaa ku soo haray Puntland hadii la dili lahaana anagu dili mayno hadii wax loo sheegi lahaana wax waa u sheegnay idaacadaha afka la xiraayana waagu markuu bariyo ilaa gobolku markuu dhaco bum hadana bum bamba bartana balaha iska rifaaya anaga bartaan u fadhina shacabka Puntland iyo shacabka Somaliland iyo shacabka xamar iyo shacdiif wax shacabka fiican waa shacabka positive ka ah إيكا قف واكن عبد كو حرية كو مد لمد بان هذا حرية واكن دي وعيطمية مقرت يا أبسل السيد عبد محمود عمر الليابي واكو جعل هاي مالنا واكو تفتح مالنا مداشة تواب بالآذنيو لكن أنا مرة البواب بوصد وحانو آهي متقانا أنا مرة البواب بوصد تيفانو آهيو حقي صلى يقوم مرعدة وحان لها مركد دار نكالي لا تقبله وجعل هاي ما أنت أمو سيد كي قطابتا لكن الحمد لله رب العالمين وحوانا كنت على سلفتي واسع ما نبى باش ماشي بريسان انت بدك هذا ما شاء الله قضب كلا تاسنا كذا واجنا ما شاء الله هذه ومد الصومالية أو جوريو ما شاء الله هوادي الصومالية والله صون نغني شلته حديد عدها عالمك إذا عدها الصومالية ضدنا كودا داوني شين إنه غليرتي يا شغاله لقصر نيروبي لنا كان مقدشو كان هو قال دونان مقدشو إن شاء الله هدول هذا هوذا الندى الصوماليات عندهم بقى كسر حد قد بشام الديارات ضبوا شيء خلدان عمر يسمدر ديارات هوذا الصومالية مرة يسام هالنقطة الراس عسير أما هالنقطة الراس كامبوني وضن كنجا هوذي سوقشوا وين بحساب تاكسي وين بحساب عنشورت وين النص حروتان نجا اسكداية وهولان كلي وحن شقين ميان قلوين كان كره يما مولدا المجرة ساي كوه ذاقية هوذا والنوع عني هوذا والنوع أدر عنشورت أيقنا ما قادنين وضد الصوماليين ما قادنين وحقادنين سي UN يقولون كلا قادنين لكن ويقولوا ما دوسه هو يتي ما أنت إن هوذا الصوماليين لقى حكومة مجالات المقدس ما شاء الله مدحوينها الصومالية وحالة الله كل مي وفتجي يشغاله إن أرنتها شيء قصيصي مدحوينه قلبان كلنا دي رجلنتها سيني سيد وضد الصوماليات هذا وحي اسكها الله ينها اسكها الله هوذا الصومالي ديارات دي كوسو حد قدبتو بل هالارك صاحب بدن ندا soo dhigay adduunkan saaxiibay leeyihiin hawada Mareykanka diyaarad kama soo gali karto ilaa ay isa sheegto ilaa ay cashuurta bixiso ilaa ay qorsheeda sheegto ma soo gali karto adduunyadan Soomaaliyana waa inay la mid noqotaa si damaam ma sha Allah baada waxaan rabaa inaan dadka u sheego dadkan horta hore intooda badan Soomaalida waa dad baadiye ka yimid ama waa dad 30 sano ay jiraan ba maanta wiilka 30 jirka ama gabadha 30 jirka ahi dawladba ma arag dawlad kama oga soo maxaan rabaa inaan ka sheekeeyo soo dhaqankii baa halaabay soo anigu maanta markaan diyaarad inta Minneapolis ka raaco ay dhaw Muqdisho ka dagaysaa maxaa ii baaqanaya waxa ii baaqanaya meel kasta oo transit ku ahay wax kale iska daayay airportkooda shopping ka samaysataa dhaqaale weey soo adduunka dhaqaalaha la isku dhaafay dadkuna waxay horumar ku gaaraan inaad dhaqaalaha ka xisaabtantid inaad time-ka ku xisaabtantid inaad waxa ma taqaanaa wadankaaga wuxuu yahay ku xisaabtid dadka waxaan ku sheegayaa dad yowgan wadankan aan ka baranay xataa maanta markaan dhaho
intaan ka baxayaayo xaggan aadaya daarahaad aragtay ee Kenya laga dhisay ee Soomaali leedahay xataa markaad runta fiirisaan ya canshuur xataa wax ma taqaanaayeeto hadduu maanta dab ku dhaca xataa wax dambina ma taqaana canshuur lama lahan sarta downtownka ku taala laakiin oo sartaan ka qiimo xunna insurance bay ku jirtaa waa la badbaadinaya soo maxaa ku keenaya soo nabadu naas la nuugay leedahay madaxweyne farmaajo Soomaaliya xornimo weyn buu soo jeeday wallahi guul buu soo jeeday ra'iisul wasaaraha ninka la yiraahdo khayr waa niman dhalinyara wadanka midaada kale ma forever baan haynaynaa bay ku dhaheen anigu waxaan dhihi lahaa 4 sano kale ormaariga oo aan doorasho gelinaha loogu diro oo kharash ba naga bixin si macna doorashada kharash ba inaga baxay hadii la iga yeelayo weey inkasta aan jeclaan sharciga inaan dumiyo soo qofku markuu wax intaasoo maxbuus bay soo daayeen dakadii bay soo daayeen war waa been ma ku sheegayo xataa kalarkaygi baa soo laabtay dawlad baa noo uray insha Allah waxa idin sheegaya waxa wanaagsan qofka xun xataa hadaan maalin batiraadi adduunka horta waxa ugu edab daran state-ka aan joogno madax iyo calool baa ugu edab daran I believe hadii dad runta u sheego u heli lahaa in xataa hagaagi lahaa maya waxaan idin sheegaya qofka wanaagsan hadii la dhaho thank you waxba isbedelaya wax badan bas bedelay kii xuma marka caydaan oo kii xuma taqaanay kii fiicna caydaan oo kii wax qabanay caydaan oo kii hadlay caydaan oo kii wax ku sheegay caydaan oo ka diinta ka baranaysa caydaan yaad hagaajinaysaa caydu waxba ma hagaajinaysaa waxay biisaa qofka waxa la dhahaa thank you baa la dhahaa hal wax haday qabteen thank you very much Xasan Sheikh bar dawladnimadu inay qaali tahay shalay wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku arkayay website-yo ay soo saaray arono inay runtahay ma war waa xaqiiqo waa main Portland iyo conference oo waxyaabo jaamacad xagga ku taalo oo looga hadlayo arrimaha geeska Afrika iyo leadership-ka madaxweynayaasha hore soo maray yaa magaraysa lagu invite gareeyay asaga ma sheegin laakiin ayaga soo liigareeyay kullee waxay ka damacsanayeen garmeen caalamkan fiisaha waa la isu diidaa madaxda qaar waa loo diidaa qaarna waa loo ogolaadaa laakiin waa jambal bakoos laakiin anagu ma aan ogolaan arrintaasi anagu maya marshalay markuu madaxweynaha ahaa madaxweyne Obama ag taagnaa marwada madaxweynaha Obama ag taagnay Soomaaliya garanay sharaf bay noo ahayd magac bay noo ahayd ma waxa lagu lahaa ma cadaan baa ku oranaya mise madow baa ku oranaya oo ninkaas taqaana ninkaas waa nin hawiye ah yaa lagu lahaa ma no Soomaali ninkaas waa nin Soomaaliya oo madaxweynaha Soomaaliya baa lagu lahaa Soomaalitii la yiri fiisa loo diiday wallahi oo billahi oo tallahi aan control baa noqday waa amba waa ka xanaaqay macna qof walba damir leeyahay because waa nin shalayto Soomaaliya madax ka ahayd waxaasna maxaa keenay burburkeena keenay yes qabsiga soo waxaan ku idin sheegaya waa nin mutacallina waa nin wax bartay waa nin Soomaaliya taariikhda madaxweynaha ama wax fiican ha sameeyo ama wax xun ha sameeyo qof kasto wixii aad sameysay baa taariikhda ku galaya waa sax waxa lagu yiri ma ahan waa waxa adigu sameysay ما واحد idin sheegaya qof kasta oo Soomaali ah oo mas'uul noqday haduu dhexda u xirto maxaa waari meysida war ka haro bas ما هو حقيقي ما شاء الله war ka haro haduu dhexda u xirto kulli taariikhdu waxbay ka qoraysaa laakiin dawlad xumi hatta dawlad la'aan bay ka fiican tahay waarun marka madaxdeena daaya madaxdeena shacabkooda ha dhowreen madaxdeena dalkeena ha fiiriyeen indhihiina lacag ay eegin indhihiina mustaqbal ha eegin la luuska lacagta dadka lacagta shaqeysta anigu right now waa shaqeynaya what this time ban xagga jooga ma garanaysaa hala yaran hadli karo baashan aan ka yar gabarin umadeedina wanaag u sheego dalkayga jaceelkiisa muujiyo oo am garanaysaa aqligayga banaanka soo dhigo waa jeclahay laakiin macnaha Soomaaliga waxa la rabaa ciida jeclaado dhulka jeclaado geedka jeclaado dadkiisana jeclaado ma sha Allah aad iyo aad baan u cambaareenayaa qolooyinka wixii la taabtaba lacag u maleynaya no lacagtu waa inaad adigu shaqaysataa haddii aad mas'uul noqotidna waa inaad ummadaada u shaqo waa inaad adigu sida caalamka ka jirto waana adigu ma garanaysaa transparency tahay oo ma garanaysaa wax mishaarka lagu siiyo moogiye hunguri kale ka gal hooyooyinka gaajeysan war wax yar baan maamuliyuna ku sheegay aad dhigayso muqdisho soo caasimadda ma waa saddex qaybood weey caalamku waa laba qaybood kaliya ma garanaysaa muqdisho waa saddex qaybood qayb hal maalinkii hal mar cunto iyo qayb ana maalinkii waxba aan cunse u tuugsanayaan waxba soo iyo qayb koob shaahe ku cunto aad dhigayso koob shaahe oo ma garanaysaa ka yar
$3 ku cabtaa jirto maraykan $3 koob shaah kama joogo waa $1 weeyaan waa caasimadannada weeye wallaahi been ma maamo been ma qayb maanta oo dhan wareegayso oo tuugsanaysa magan allah magan rasuul ku hesho oo wallaahi allah noo sahlo ilaahay noo sahlo leeyahay waxba asoohil iyo qayb intay gaarigacmo qaataan gaarigacan ku shaqeeyaan oo xooggoodii dhididkooda laga yaabo inay magaraysaa shilin Soomaali soo dhacsadaan oo hal qaday ama casho kaliya helaan iyo qayb hoteelada technical lagu ilaalinayo magaraysaa koobka shaah $3 kala baxay waxa waa inay soo dhamaataa ummadan waxaan ugu helinayna ugu dhawaaqayna ummadan at least inay hal maalin qadada ay helaan ma sha Allah magaraysaa ku soo maamo soo gabagabeynaa insha Allah ما شاء الله سيدا الله را وحرتي صح شاي هوي aniga fundraise baan waxaan soo saartay Facebook waa soo share gareysa GoFundMe baan soo saartay horta waxaan ka codsanayaa waxa laaliyo waxa taqaanid oo taraagla ah taraaglaad kala tahay oo taqaan inay GoFundMe ay ka qayb qaataan sababta ay u kalifaysa waxa weeye duqbulow maanta haddaad Minnesota gurigayga timaadid ama aad i aragtid ama magaalada igu aragtid ama aad ii helisid nin baa tahay laga gabanaya gabdha ma noola gabadhii ay ag istaagtay stress baa ku dhaca صح دعوة لوكينا دعوة لوكينا دعوة لوكينا مركا تايدي بان كدالي تاذينا كلغي ما أبود غرين كرا صح وحن قوان سلي دادك عاد ما أنت كهل ليسو الليد هاي والله حمر بان وحن سو أركي نمبر أفر أرقا كتالا صح أرقا كتالا هوستي هذا ماشي ورقين الصومالي حتى مركي محمد سياد بر الله ونحرستي أو تشوقي مساكين توي فريسين شرت ماشي أرقا جيس كذا دربي سا أوريك سنة صح دربي جاسي فريستان مساكين مريا ويالا أمره قاربا عندنا قاربا لغلا سو وحن كل شيء دتك واتوريان شرمي كتوريان ما أنت دم وحي أرورنيسو لا لا مواسحة بيها مقويسو صح لا بيها ولا عبه ومقويس اسكدع أنت وكنت صح أنت يكون أنت اسكدعي ما شاء الله سو وحن كل شيء إيميل وربنا ويفديان ضد كاس بان ربنا إن إيه كوا قربها نشيلش كتير إيه كوا مقفة قبسنا إيه كوا هالكان دقر حماده كل عضي إيه كوا هالكان وريرسن إيه هو يوي المية يرها يستو أو ذا ديبرشن كبوحه إنا وحقه منه نمان عرور دارين أو أنا جورسن أو وحبة أوجين بعدين نقول الجن مركز شيء بعدك وان عمبارين ما له تنا ما شاء الله يا ماما أوكادي محان مساكين وحسينا محان ضلك يجي أوقعنا محان وحقبنا شلون كيجي باللوير بانسينا كيف كيجونا كسب بحية مركب بليز أنت كوحرا أنت قادد قافن ميجا يجي كقيبقات ما شاء الله ماما مليون وحي محكمة ده يجي كسوهرة وحنوسينا مساكين أما مدن كان هتشوجين أما ودن كان هتشوجين بانوسينا صح ما شاء الله قبل بدن بان وحنوشيجيا إن الميتين كوقبسنا إنه every مسار داي بان كدي قدونا مسافرات داي community room بان لسي عم كشرنا صح لكن بني لسي مقالة عم كيالا وعن دمرك كشرنا صح وحن ربع هنا إذا شيء أقول بليز أم بليز صومالية نلك استاد شوف تام يا صح وحن خالد دهر على سو وكهل ما دويته وحن خالد ما دهر على سو ما دهر على سو ورجل ما أهم تيدا كلية صح إن الله على أنت لبعت أركتان هنقولنا كوي اللي يري يا رب الإسرائيل مية كوي اللي يري ما أنت جمعها ما أنت سبت ذا ها إن هأوجار سننا بدها كأوجار سننا صح كوي ديدي هي كوي متقنا يتو سمية صح هي كوي كهلي كوي كعامسي وكعامسي صح أنا قليل يا وسنا هذا الصومالي المقرن صح دول مجيء أنا كعامسي صح هي كوي سمية صح كوي كعامسي كوي سمية أنتي وحويان صح هذا وسلام وانا قاطع بايوان هذا الشيء إلهي وأقولي واسع anyway وإن سلام يا وسوق قولنا ما مليون قفان كذا على قريب قات هلا شير قريه أنا وكقريب قات وأنا شير قريه وأنا بروموتر قرينا يا ما شاء الله ما سنت هاي وقت جاي يقولنا بعد وسوق بقبينا يا وبدو الصوماليين هذه ما ماذا واجعل هاي نكان كل جنة ونيو تلكيسة وأنا قبض نكان دور مرة هرنا كذا أنا وشروط بصوص صاروا كل ورا بالكيا ونكاسي هول بيد قليل مكور إن شاء الله. ومدى الصوماليين نقولش أنت السوشيال ميديا وقعنسن وككوه هنا وقرب تاجين ماما. They never accept إنه go down نقطة. He will go down. لين عايته مساخة كبحية ما قرأت. نكوا هنا وأغلي وراه لا ما هذا قف الضمر وهو يده وكله تعاي كل جن وحاويين تيجي مسوده. فكوا عم بارين إن شاء الله ما سنتهاي. Thank you very much. أبرمش كي قلنا قبل توان وقرب تاجين عندي لره. Thank you. هيا ماما السلام عليكم. السلام عليكم.
هذه أدبا يدي سلام يا إذيكنا ما شاء الله مليون وماما جعل ماما الصومالية دويان ماما قرب تاقنان دونا وإن شاء الله ولق يا الله أنت وهي لسنة تانكي فير ماتش هذه أدبا يدي سلام يا ميل بتا جوكتي وقتي وقدم هذه إذا عد حرته هذه ريبو ساسو إذا قرب تاقناي وأنا إذا قرب تاق دونا ولقيني اللي إنه إذا قرب تاقنان دونا قوامدا شركة كسب بحي هي قوامدا شيء مقرنة ما شاء الله أنت كده الله بالله inta ka daashay ma garanaysaa la weynaysiyo waanu ka qayb qaadanayna haday noqoto juudi iyo haday noqoto inaan ma garanaysaa u soo banaan baxno haday noqoto inaan la kaashano meel walbeeto waa la kaashanayna waa idin garab istaagina reeboosaso aniga maamulka iyo dhaliishiisa iyo siyaasadda doorashada waxba igama gelin laakiin hooyooyinka iyo aabayaashaasi in la cuno qabato marnaba ogolaan maayo aad iyo aad baa idin salaamiya ma sha Allah عايدن wax wanaagsan ma عايدو waa ka soo xirmaysa social media hadii aad tiraahdo waan caaytamaya ama wax la sheegaya ama qofan record gareynaya codkiisa ama tiraahdo in ma garanaysaa dadku kuma trust gareynayaan xaqiiqada dhabta dadku kuma aaminayaan xaqiiqada dhabta waana fikirkaaga iyo oraahdaada iyo wanaaga sheeg kartid umada u sheegtaa wixii la wadaag kartid aad la wadaagtid wixii siyaasadana aad ku ekaad qabiil caayiga ma wanaagsano qabiil naceebkana ma wanaagsano ma sha Allah هذه بان يدين سلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت عايتنتنا بلوك بصاري دي بان نقول نقول يا كومنتيغا انت عايتنتنا ودن بلوك بصاري يا دير معانا بلان با اذا كقاعد مع الفيسبوك ان اذا كتب قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته